dhulka Soomaalidu waxa uu qayb weyn ka qaataa isku xidhnaanshaha iyo iska warhaynta dad deegaan ahaan aad u kala fog. magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa soo dhaweyn diiran loogu sameeyay ganacsade qurba joog ka soo jeeda magaalada Hargeysa gaar ahaan galbeedka Hargeysa oo xidid iyo xigtala magaalada Laascaanood gaar ahaan galbeedkeeda. soo dhaweyntan ayaa waxa ahayd mid aan hore loo arag isla markaasna aan loo sameyn xitaa mas'uuliyiin iyo madax kala duwan oo gobolkan timay si weyn loogu soo dhaweeyay. way ka duwan tahay soo dhaweyntan soo dhaweynihii aad hore ugu arki jirteen magaalada Laascaanood. gacal kala maqlaan jiray galbo way soo ololahay soo dhawaada ربنا سيمك هاي والله قصب عيو صعد علينا مكهور السبع عشر ربنا سيمك هاي صدوا مضاري والله قصب عيو صعبت بايو ربنا سيمك هاي waxaan soo dhaweynaa odayaasha maanta noogu yimi Laascaanood degmada Laascaanood xididka iyo xigaalka beesha Hawar Awal Saacad Muuse ku soo dhawaad ayaan leenahay anagoo ah reer Laascaanood gaar ahaan beesha Aasiyad waxa weeye sidii hadirtan ninkii horeeyay uu yiri waxaan soo dhaweeynaa walaalahayo waanu sahayn horena waanu soo hayn iminkana waanu isnahay gacal kala maqlaan jiray galbo way soo ololahay soo dhawaada halka ku soo dhaweynaa fuuda nooga timid magaalada Hargeysa ee gacalka yaga ah ee xigaalka ah la wada soo dhaweynaa si sharafna ku soo dhaweynaa maaxi ehelkiisa iyo familkiisa insha Allah soo dhawaada welcome Sool guriga daraawiishta urtani ma anaga inoo safan tahay ma sha Allah dumarba oraadii imika de waxa weeyaan hadalku qufuluumiyo furuleeyo furihiisi gacal kale maqnaan jiray iyo galbo ay soo ololaa waatan isku bariidinay hadii la kala maqnaan jiray inta isu timaadana horta waxa isku xidhan hadiya jeer dulahaama marka la yiraahdo teesaqiya daarood way isku jiraan hadba dhinac iskaga jiraanba degmada ay u kala go'go'antayna waa sideeda inuu hortooday badawaan hodawaan toonayado waa Laascaanood maanta ay ugu horeysa tadana hayna waa arkaysaan sidaa darteed baanu haddii maxamuunayo salaana idinka qaadnay soo dhaweynna idinka qaadnay si wanaagsan baaburtani ma anaga inoo safan tahay ma sha Allah quruxday ka mid tahay qiime gelintay ka mid tahay annaguna waanu idinka qaadanay annagoo beesha Makaxayl Isaaq Saacad Muuse
ولا صعنا محمد تولكيسة وعصي الشرف يملقى لأن لو سود ويجي مقعد الله سعانود باشا البنتي جودهان جارهان باشا ولا حيد كي هاي محمد جامع السياد سودوين هير صراع ورقي الدور باه آد بانو يدوكم هذنا قينا محمد waxaa aad uga faraxsanahay soo dhaweyntan lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood aniga iyo ogaashayda oo ku soo kactamay magaalada Hargeysa oo ay noo sameeyeen dadkan xididka nahay beesha jaamacsiyaad gaar ahaan reer Cabdullaahi Maxamed Kaas aad ayaad ugu mahadsantihiin soo dhaweyntiina quruxda badan waana ku faraxsanahay ربنا سيمك هاي والله قصب أيو صعد علينا مكهور الصلاة عشر ربنا سيمك هاي صدوا مبارك labada qoys xididka wiilka maxamed iyo xayaad Cabdullaahi Gaas dhinaca qoyska wiilka ayaan ku horeysiin doonaa laakiin waxaan ku furaynaa wacdiga iyo quraanka Sheekh Yuusuf Haybe الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إلهي سبحانه وتعالى يا مهدنا رب سبحانه وتعالى وحيدي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا إلهي سبحانه وتعالى وحوي وكيك أبو مركا إساقا أن من الماء بشرا بيه بانهي بلاد مكا أبو وري تبدأ كي لي نسب يصهري نسب هو طلقي سير واحد نمدي لباس الله سبحانه وتعالى كأبو وري إلهي وحو هذه كي وحكست أودا وقدره هذا سنحسسنا إنه وآيات قبض سكوه كنتي وحيلتها هاي وأونس برشو دي دادك وحاكا كحيي أدونك لو كلام مقنية هاي مركو هورا هالكن وحيالا بدن مرر بدن بانو أفرشان شيروا قرنيا لبدا قويس آن كم بهريني قبل لو سوكرا دوني لكن تنوا قويس وين أو بلارن أو حل هوراها marka hadda waxa weeye isbarasho iyo maadaama la kala maqlaan isbartay sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay waajib iyo xil baan leedahay oo dadka tolkana xiriir ba ka dhaxeeya xididnimaduna waxay leedahay sharaf iyo qiimo iyo milgo aad iyo aad u weyn oo Ilaahay baa Qur'aan ku sheegay taas marka isaga mid walba waa qarabad iyo xiriirkii la joogo gabadhan waxay ahaan jirtay waagi hore safiir bay ahaan jirtay adduunka gobxan joog baa loo dhan jiray meel kasta adduunka qofkeed yaada gabadhaas waa la yiraahdo waa lagu xidhmi jiray تيوم بين ما أنت إن شاء الله تعالى اللي سوي من الإسبرتو إلهنا سبحانه وتعالى نقول إن كلنا بركيسن أو أذوق بدن ومركا المعرفة ده هرا لو كلام مقنعين ما أنت سفي عن اللي كل فعاب كلام الدولة كل فعاب الدنيا كل تشوي مركا إن تيم أنت الإسبرتو أو ما أنت هذه ملك الإسكوري مادو أن ده سكرنا يو سأقونسن أنو نقول إن شاء الله تنتهي قط في ده إلهي بن برينا سبحانه وتعالى قيس كاس يرهر كاسن الله سبحانه وتعالى بركيه reer maxamed maax iyo reer cabdullaahi maxamuud gaasba dhammaantood iyo ilaahay barakay maanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qolada noo timi ee xididkaana waanu idin soo dhaweynaynaa si qoto dheer xeel dheer baanu idin soo dhaweynaa wanaag iyo xididtinimo iyo xidhiidh leh waxaan la yidhi ha loogu horreysiiya isbarashada waxaan filayaa
annaga xagga iyaga markay barashadu ka soo wareegtana xaggiinay ku soo wareegi doontaa sidii ay ahayd dhinaca haddaan ka soo bilaabo maxamed gaas waa ninka koofidale ku soo beegan mustafe aadan maxamed sooma kayse maxamuud indhataag caaqil maxamed caalin qaalib hure caaqil xasan warsame ninkaan xaadiriyo gacanta taag yuusuf ismaaciil oo weliba isagu mudnaan gaar oo siiro waa gabadha si abtigeed kastoo jaacsada daran yahay caaqil diiriye aadan mar caaqil yuusuf cashuur abyan ninkaan xaadiriyo gacanta taago caaqil ismaaciil cilmi waa maqlayaa maxamed cawl ducaale waa gudoomiyaha guddida jaamac siyaad caaqil maxamed cali maxamed goonle maxaa ku dhahdaa faarax diiriye aadan mustafe cali jaamac xamuud maxamed gaas oo ah jifidii gaasyadii baa la soo galay axmed yuusuf xaaji cawaale maxamed cabdilaahi kadiye cismaan salebaan jaamac cali maayirkii hore ee magaalada oo ninkii wadooyinka furidda na baray ahaa jaamac xasan saalax garyaqaan jaamac axmed warsame gadari oo wariyihii ah adna isheeg cawaale isna waa cawaalihii adna anigoo ah sanyare ama axmed maxamuud maxamed الحمد لله وسلام الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا سعد موسى عمر مكاهيل نومر تدا أنا حدث كنهاي ما أنت هالكن نوجود تبي هالكن قد شرفت أنا كوذا قديني هرت مشرفاتك هذه بانو يدين سلامين. هي بيشن شاع سياد وين سياد محمود وين محمود قراد وين قراد شو شوري واد قراني سنبر مريلي أنا وسعد موسى نغان سيفي عمبانون نغان حدد نمضى جود يدغن كه سومالي لان تكلم لو ذاكنا هدينو شاع سياد يا عمر مكاهيل نهاي وصومالي واحد oo isku dhaqan oo isku dhowdahay waxaynu la wadaagnaa dhaqanka iyo xididnimada iyo dhaliyada iyo isku soo dhawaanta waxaynu la wadaagnaa Soomaaliland inta kale jilib kasta habar jeclo habar yoonis dhulbahanti cid kasta warsangeli Soomaalida kale waxaan u maleynayaa halkaas inaan waxba la sii dhudhuminayn kala guursiga iyo dhaliyada iyo xididnimada aad iyo aad baynu la wadaagnaa Soomaalida kale maaxi xayaad maanta isu keenay Umar Makaahil iyo Jaac Siyaad oo halka ku wada qadaysiiyay waxaan waa laba safiiro waxaan u maleynayaa waa u mahad celinna ilaahay ha barakeeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinna inta waxaan ku darayaa haddaynu dhaqankii iyo xididnimadii wadaagno hadda siyaasadiina waa wadaagnaa halka waxaan leenahay haddii habar jecel hayso siyaasadda oo aan habar walhayn lahayn ama habar yoon sayso garxajsayo waad kaga dhiiranaan lahayd inta waxaan tayadaa sidaas waayo dad badan baan idinka aqoon oo isdhexgal badan baynaan yeelan intaasina intaa weeye waxaan kaloo sheegayaa annagu haddaanu daarood nahay xagga ilbaxnimada qolada majarteen baa noo yarfaanta oo yidhaha annakaa badmareenoo badlaho waa kaasoo intayada kale daarood bay u faanaan ogaadeen ninka abtiyaasha waxaa lagu xantaa waa badow waana kuwa ugu bilaysan annakana geeljirana lagu xantaa sidaas ay majartoonku noogu faanaan habara washuna isaaqa kale u yarfaantaa xagga baacmushtarka iyo ilbaxnimada iyo inaad xoogaa u yarfaantaan kuwa kale waa ognahay waa idin naqaan xoogaa baad u yarfaantaan waa idinka reer magaalsantihiin bulaxaar baad lahaydeen berberaad ku dhaweydeen saydac baad ku dhaweydeen ilbaxnimadu dhulkay kala dhartay baad joogteen xoogaa baad u faantaan waa idin ognahay sida kale isugu mid baynu nahay barasho wanaagsan soo dhawaada walaalayaal xididnimo wanaagsan nin baa igu yidhi muuse ismaaciila
nin sacad muuse baan habeenku yidhi jidda inaad dhulkii baan aadaya kaalay shoobin ila soo sabe gabdhihii iyo shoobin ila soo sabe markuu yidhi waar gabdhaheenu isku wax ma qaataan dee waar mu isku waxbay gabdhaheenu qaataan waar kuwaygu sida baakistaanta ee dawlad labistaan wuu faanayaa moogtahay sacad muuse saasaan u naqaan soomaalidu dhaqan kale isugu faani mayso wax kale isugu toodhoon maayaan waa uun siday u kala reer magaalsanaayeen iyo siday haddii u kala taariikh horreeyeen intaa weeye waabana isku wada taariikh aad baanu idiin soo dhaweynaa soo dhawaada walaalayaal xididnimo wanaagsan dhaqan wanaagsan sokeynimo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkan geelsiraa ku soo haray ayaa dhulkaba joogay waanu maqannay intaa waan kala horreeyay assalaamu calaykum bismillaah alxamdulillaah dhammaan cuqaasha marti sharafta baada saxaafadda dhallinyarada odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee isugu yimi maanta xafladda tan aad iyo aad u sharafta badan ee labada reer ee tolka ee xididkii ay isugu yimaadeen iskuna baranayaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa beeshiina tan haddii ilaahay idinka helay sacad muuse haddaanu nahay beesha jaamac siyaad xididtinimada wanaagsan iyo yuhuunta iyo qalbiga iyo fayow ee aad nagu soo salaanteen aad iyo aad ba ilahay baa mahadna idinka mahadnaqaynaa marka xigta anigu horta markii hore waxaan islahaa xafladda tan qiimaha badan iyo sharafta sida loo soo abaabulay markii ay ii muuqatay war nimankana la ii sheegay war ma ardaa dhig horlaba haddii aan wax waraystay oo hawshii ii baxdayna gabadhaa 26 sannadood gurigeedii dhisnaa ayaa xafladan loo dhigay baa liigu yidhi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay ha barakeeyo carruurta ay dhashay waa maxamedi kala socdaan aad iyo aad baan waxaanu jecelahay haddaanu nahay beesha jaamac siyaad anigoo ku hadlaya afka beesha jaamac siyaad waa idinka mahadnaqaynaa arrintaa iyadaa sida tollimada leh ee walaaltinimada leh ee qolada jaamac siyaad ii soo dhawaytana ilaah baa mahadle waa u mahadnaqaya waxay la tahay dadku meel lama wada joogo warna iskuma seeganaa xagga iyaga bariga iyaga waxbaa nalagu haddii la xantaayo horta geelaa nalagu xataa gabadha ama ha horrayso ama ha dambaysa haddeer waxaan isnasaa warbabaalku ma geeli ma dhiddi ku daaqaya waxaan is yidhi war qoladan bidha hadalkii qaar bay ka tageenoo war gabadha 26 sannadood inay mehersatay ubadkeena 26 kugu weeyahay talo xoolo raaga oo guuna baa la soo waday talo badhidi ku jooga mise tula salkaa bay ku soo dhaafeen intaasina intaa weeye waanu idiin mahadnaqaynaa ilaah baa madnay qoyska waqtigu waa gaaban yahay hadalkiisuna gaaban baa leeyahay waqtigaana cidhiidhiyey aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa waxaan idinku soo dhawaynaynaa salaanta islaamka waxaan idinku soo dhawaynaynaa xididtinimo waxaan idinku soo dhawaynaynaa dee dad wax isugu darsada banahado maanta haddaynu isugu nimaadno ama halkan ha noqoto ama hataa joogtaan ha noqotee dee ragga nagagama qasdin gabadha iyo wiilka ilaahay ha barakeeyo allah ha barakeeyo dhammaanteenba allah ina barakeeyo ubad khayr qale kuwii horena allah barakeeyo kuwa daba wanaagsanna allah kala siiyo waxaan ku soo goynayaa ilaahay dhibaatooyinka haynaga saaro abaarta allah inaga saaro colaadda allah inaga jabiyo qoladiinan ka imanaya galbeedka ka yimi farriin baanu faraynaa farriintaanu sheegaynaa odayga hadalkiisa wuxuu ku fariya annagu somaliland baanuna war somaliland annagu ma nihin tuurta ni ku sito somaliland ni tuurta iskaga tisto ma nihinaanu laakiin waxaanu doonaynaa somaliland aynu wada leenahay war waynu wada leenahay odayaashu waa u soo socdaaye yeelkeeda meeshii aanu ka soo geli lahay barnaamijku maalmoo dhoweed waa wacnaa asxaab baa la furay wiilal baa noo tartamay waxaa la yidhi haddii la keenay gobollada sool iyo sanaag iyo cayn gobollada bariga nimankii aanu doorannay baa horta ka soo baxday raggii markii la magacaabay dee guuguuddan baa ka daba timi waxaanu idin leenahay war xusbiyadu waa ha furmeen oo somaliland aan wadan lahaano oo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay saasaynu gidigeenna dowladaha kula tartamaynaa
dee haddii kale halfaarjeertiina buuraha kula jira wasalaamu calaykum waraxmatullaahi maqale waxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi dee waa salaanteedii iyo annaga socotadayadii oo awalba raggun waxay dee socotaa nin socdaa salaanta leh nin fadhiyaana haddii muxuu sooriyadu lahaa labadiiba inaga dhicino sooriyadiina waa taasoo waan qabnaa si qaab wanaagsan oo qorsare waan qabnaa barashadaana dee reerku waa labadeennaba way naga durugsanaa haddiise dadkii dee waaba kaa qaar soo noqon waaye ay soo noqdeen dee idinkaabay digadii idin dhigeen dudadii idin dhigeen annakuna waa ku ducaynaynaa annakuna waan ku ducaynaynaa dee isweydin hadday noqotona sidaa waa la naga ororomogihon iyo xaggaa qabiilada waanu iska yar dhan baanu isaga yar badinaaye dee waa nagii intii horeba sheegnay oo de kole dee burca soo dhaafto laydhaa ay habar wal soo dhaafto dee haybteeda kale inta loo raacraacana waa garanaysaan habar wal haddaba kolka la leeyahay ayaan in yar idiin kordhin habar wal haddaa maqashaan waa awal sheekh isaxaaq iyo ayuub sheekh isaxaaq ayaa kala dumaalay markaa awal subeer awal buu dhalay ibraahin oo ina ayuuba labadaasaa isku habar awalaysan intaa waan idiin kordhinayaa marka la yidhaha habar awal intaa waan idiin kordhinayaa markay haddaba ka dhaqaaqdo ee subeer awal noqonno subeer awal waa kaasoo xaggaa ku ka ahaa madi subeerna waa madi subeer awal ayaa muuse dhalay oo madiya muusehaasuu ka ballaadhaa geedkuyo 8 qolo noqda dadku ciise muuse iyo sacad muuse ayay soo dhuftaan 6 kale oo noqda sida xeerka Soomaalida baha muuse markaanu 3 u kala fadhiisano ciise muuse iyo sacad muuse iyo baha muuse 6 kale baha muuse noqdaan cigala muuse celi muuse cabdalla muuse cabdi muuse afkaab muuse cumar muuse intaasaa sidaa noqoto halkaasay ku hadhaan daba sacad muuse soo baxnaa سعد موسى عبد الله سعد يا عبد الرحمن سعدية إساق سعد بوياه إساق سعد أيام كنا قلنا ليح أبو بكر إساق يا مكاهيل إساق يا ياسف إساق يا موسى إساق يا محمد إساق يا عيسى إساق محمد إساق ليح سنة ما يمرين مكاهيل بار نقولنا مركها مكاهيل اللي حبوا كلا بحا نيجي هذا هاي رنا لا يسواني وابتري نالا يا وحسن مكاهيل أنا كنا وحن عمر مكاهيل عمر مكاهيل با علي دلي هل كاسي علي عمر كهدنا كم ترسين علي با أيام مدي halkaasi haddana geedku ka ballaadha dee barasho marka ay sidaa tahay dee ilaa maax maxamed waa ku arooriyinoo soo xaree maantana idinka idinla degeenoo war masaajidku maantana tusay annagiiba waryaadhaheed war dee intani war maax mayareed baad bixisay ما واحد بطيء أنتي هذا الكلام قلنيسه يا توانو دعين ناي دعية أنا من برشوا أحسن سيدي سداي مركه ورا هنجتي حبلها وقفك أدنى جبا كان أدنى جور كان كنا توا غير كاد دجنة حدير محمد دجنة تقول حي كلام كدار الهين إن أنت هذا نقولي قاود سيدنا الله هين واد سني
تيجدن يا برشة وناكسن نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore Allah inoo aqbalo ilaahay baan ku mahadnaqaynaa islaamnimada inoogu manaystay amniga iyo inoogu manaystay deganaanshaha inagoo tola xididnimada dhex mariyay sidoo sheegay nasaban wasiira sheekha ducadiisii iyo dardaarkiisii Allah inoogu anfaco adaga maqsadkaygu wuxuu ahaa iyo socodkayagu taanu nahay makaahil umar makaahila waxaana casuumay marka hore horta maxamed maax oo nagu casuumay gacalkii oo ay kala fogaayeen aan isbaranno bacdama aan tolkiinahay taana ay keentay ta caalamka wadda ka dhacday Soomaaliba wax inagu cusub maaha kala muxuu ahaay qaxa iyo qaxoontiga iyo qurbaha tagay ba kalifa in maanta reer ka dhisnaa 26 sanadood sidoo noo sheegay xayaad iyo maax waxay isguursadeen 96kii 26 sanadood baa laga joogaa carruurtooda taween waa 24 jir weeyii marka inay dhumaantas baranno waxa ay dhaantooy keentay dadka maqnaanshaha iyo qaxa iyo qurba taga marka maqsadkaygu wuxuu ahaa isbarashada umar makaahil iyo jaamacad siyaad idinla waan idinka mahadnaqaynaa soo soo dhaweyteen iyo muxuu ahaayay casuumadda noo fadhiiseenba iyo gacantooyada balaadheen noo muujiseen adigu taariikh dheer buu galay oo maalinkan maanta awal iyo jaamacad siyaad baahantoo dad maanta isbaranaya ama xididnimo ay ku tahay ma aha waa sidee waayeel iyo caadkiyo taariikh dheer buu galay marka waxaan ku soo ururinayaa barashada yada aniga dool cabdu inteeda horta imika wada socotaa niman isku umar makaahil aan nahay oo maxamed maax tolkiisa marka de barasho wanaagsan kulli xabaalixid marka gabadha waxa la yiraahdaa xayaad محمود عبد الله حياة عبد الله محمود قاسمة طبعا غير قاس دسي قوان ومقرنا صايد دي قعنتان وسقاي دونا سي قايبان وشو بران دونا إذن جودا هان دي برشة وناكسن وضياشا نكن وضياش وحوية نور عبد الله محمود وضيجا محوي سيدي نك حياة قبوية الله يسبركيو الله علي ومح نكي كحجة ولا الكيسها نكن محمود عبد يوسف الله ينور وضياش ريركا نكن هو دكتور ظاهر سعد نكن محمد حاجي حامد ويه تبرشة وناكسن badan ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta aynu kala kulmayno soo dhaweynta qiimaha badan shalay baanu halka hortana lagu soo dhaweeyo horaantiiba waxaanu helnay dhalinyaradii iyo hordhaca soo dhaweynta aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa qiislaan xaggaana de kulli salaan qiimo leh ayaynu idinka sidnaa maax iyo maxamed maax iyo xayaad cabdilaahi maxamuud oo maanta kulankan qayb ka ah runtii isku kaay keenayna waxaan u ducaynaynaa oo madasho madal duca oo qiimo badan Allah isku barakeeyo dhamaan caruurtoodana Allah barakeeyo magacaygu waa Daahir Saad waxaan kamid ahaa uun dhaliya xildhibaanadii doorka dhaweed tartanka isku dayay haray 3800 coda qoyskan baan u sharaxnaa 3800 cod baan ku dhacay halka galbeed barigana de ay xildhibaanadoodii ku fadhiyaan baarlamaanka cod 1500 iyo 2000 iyo ya marka aad iyo aad baad mahadsantiin وانا ندي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنيا داهر كل واحد فضل دقن ولد دقن كيس برشة إنه كتجين وحنقصوا جوين إن محمد عسى وأنا سمكاب شامع النور ودم بيصادوها الله أدوها الله يخدمها